intaana arrimahaas u gudbin waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaamka waxaan taabanayaa qodobadaydii sida aad la socotaan Puntland waxay leedahay dastuur waxay leedahay waqtigaas oo ay leedahay oo doorasho caada ay u leedahay xilligii doorashada iyo kala guurka ayaa lagu jiraa waxaan rabaa marka inaan arrintaa ka hadlo arrintaasoo dawladda aanu arkay intii dawlad jirtay anigu oran maayo dawladdii afraad weeye oran maayo dawladdii shanaad weeye cabdiweli maxaa calikaas oo mid walba wax la doortay intaa waa joogay kollega doorashaduna waxay ahayd dhaqan wixii iyo hawshii baa ii muuqan weyday sidaa darteed waxay ii muuqatay inaan dawladda tan doorashadaba ka hor cadday maxaa yeelay guddigii khilaafaadka ma leh oo lama magacaabin gogol xaarkii iyo diyaarintii dawladdu ku lahayd doorashada isbeddelka kaalinteediina ma muuqato sidaa darteed waxaan u arkay in arrintaa in laga hadlo ay lagama maarmaan tahay dawladda waxaan leeyahay meel aad le ku ruugi jidhay oo ku cuni jidhay lafo inaad ku ruugtaa maaha wixii dhaliilay idinka imanaysana in laga baaraan dego wey Puntlandna sidii loo dhiibay oo la idinku dhiibay inaad u wareejiseen baa xaq u leedihiin waxaad xaq u leedihiin shacabkii idin doortay karaamadiisa inaad siisaan waxaad xaq u leedihiin ummadda intaa xukumayseen inaad ku xurmaysaan sharafkii ay idin ka amar qaadanaysa waxa cajaba oo la yaab ah iyadana oo qodobka labaadii ah 11 bilood baa waxa la raajafadhiyay jiita tukaraq waxa la geliyay dadkaas iyo ciidamada dagaal dhicis ah oo aan dhamaysahayn oo badan dadkii aqoonta lahaa arrin ka timi ma ahayn ee waxay ahayd arrin xukuumadda iyo madaxweynaha ka timi guul laga soo hooyena ma jirin waxaan khasaarahay maantana iyadoo ay u harsan tahay dawladdii 50 casho iyo waxay iclaamisay dagaal waxaan qabaa dagaalkaas inuusan ahayn waqtigiisii maxaa yeelay xilligu gaari doona lama yaqaan waa arrin siyaasadeed oo waxa ku jira arrimo daneed oo gaar ah waxaan leeyahay hawshaa iyada ahi ma socon kadho khasaare iyo dhib iyo dagaal dhicisana ummadda in la geliyo waa ka digaya taas halkaasaan kaga baxaya dadkii dhaqanka iyo salaadiinta odayaasha sharafta leh waxaan leeyahay xilligeennii weeye waa xilligii kala guurka waa xilligii hareeraha laga geli jiray waa xilligii waxa qaldan ay idin muuqatay inaad ka hadashaan Puntland siday ku timi iyo marxaladaha ay soo martay iyo siday ku dhisantay waa la wada ogyahay
yay janjeersan yay kala daadan u kaca baan idin leeyahay sharciguna ha sarreey musharaxiinta waxaan leeyahay iyadoo amniga iyo karaamada iyo sharafta la sugayo aan laga gudbayn kaalintiinnii waa idiin bannaan tahay ilaan waxbaad ka rabtaane hadday kala daadato oo la burburiyo oo ciddan wadataa burburiso dhib u geysato hadda wixii aad isu sharacayseen oo ordayseen meesha ma taal waxaa la rabaa afkaartiinna inaad caddaysaan ka hadashaan dagaalka maanta la bilaabayo oo ujeeddada leh oo doorashada lagu khalkhalgelinayo inuusan soconayn inaad ka hadashaan baa loo baahan qof kasta oo muwaadina oo Soomaaliya oo damqanayana waa loo baahan yahay oo garanay 6 bilood 7 bilood haday dawladda u harsan tahay waa arrin lagu dhaqaaqi karo laakiin konton habeen koob iyo 10 bilood waxa lagu qaban waayay inaan lagu qaban karin hadda waa cadda arrinta awalna waa ka hadlay haddana waa ka hadlay riyo run ma noqoto anugu sargaal qaran Soomaaliyeed baan ay taydi ma ka hadlay Abduwali Maxamed Cali Gaas xilligu wax baranayay sargaal qaran oo xil hayana waxaan bartay takhasus akademi baan galay manaahi baadiya laygama qorin nin wax bartay oo ilaa dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare ka baxay baan akademiyana galay dugsiga sare ee beeraha agricultural secondary school baan ka baxay dayax akademi baan galay takhasuskaygu wax cad weeye takhasusku ciidanka dhulka infantry baan halka Abduwali jaamacadda uu galay oo maadada dhaqaalaha ka bartay anna takhasuska infantry baan ka bartay iyo option badan oo ah aqoonta ciidanka iyo hogaaminta bulshada marka Abduwali ma ruqsayn karo waayo aqoontaydan leeyahay dadkay wax laga oo ka dhigay oo baasha sida fudud u qaatay maahi baashaydu lafaha iyo dhiigga iyo xididada ku tolanta marka waxba ka socon mayaan taas horta dhaqaaluhu waxa baysu ah wasaaradda maaliyadda ma dhicin madaxweyne 3 wasiir bedelay oo isku bedelay Abduwali ka hor oo maaliyadda haatan waqtigii baa ka dhamaaday kii afraad u baadi doonayo googoobi halkaas waxa ka muuqata hogaaminta wasaaradda maaliyadda inay fariisan weey maalintii Abduwali maxaa Cali Gaas oo xukunka qabtay dollarku wuxuu marayay 2 milyan iyo 400 dollar halka uu maanta ka marayo 3 milyan iyo 600 waxa uu la sameeyo Abduwali maxaa Cali Gaas sameeyay lacag falsa been abuur ah taasa waxay keentay hadee arinta maaragtay sicir bararka iyo maciishada kordho Puntland ku baahday ila keentay waxay sababtay ciidamadii qaranku inay qaadan 4 sano العرس حكم كينتو هي Abduwali maxaa Cali Gaas dayactirkay xaq u lahaayeen irbad iyo dumbaha ugu yaraadeena kama helin ciidanku 4 sano iyo 10 bilood ma qaan 2 bilood oo haray wax ka imanaya ama wax ka dhalay dekadii waad ogtihiin imaaraad buu ka gaday 30 sano waara gaara
waxay ka qabanayaan meel hadda xabad shamita meel kama ayaan marin waxay ka qabanayaan ma jiro maxaan ku yiraahdaa wadadii dheeray oo Garowe iyo gaalkacyo oo gaadiidka iyo dadweynaha safarka danta u ahayd waxaad ogtiin inay joogsatay oo aan laga shaqayn haatan waxaan maqlayay madaxweynuhu inuu yiri waa ka shaqaynay waxaan leeyahay allow riyadu rumowd goormu ka shaqaynay jeebka igu jira bil iyo maxaan ku yiraahdaa iyo 20 casho waxba lagama qaban ciidanka iyo shaqaalaha xuquuqda ka maqan ciidan ogeey ma jiro Afrika iyo Aasiya iyo Ameerika waa laga ogeey official superior gaashaan la sare waa sargaal sare wuxuu ka hadli karaa wax allaale iyo wixii uu arko oo qalooco dawladda ku jira waa ka hadli karaa markan hadeerana waa markii ummaddu ka hadleeyay masiirkeeda dawladda inqilaab ah oo xoog wax ku qabsatay ma ahayn midiya wax ku qabsatay Abduwali maxaa calaakaas markuu soo galayay annaga ka hortagnay soo dhaweey waa kan sargaalka waxaan ahay anigu amniga sugay oo Siciid Deere General Siciid Maxaarsi wakiilka uga ahaa amniga nugaaleed markii doorashadu socotay isaga loo dhibay Siciid baa loo xilsaaray Siciidna wakiilana uga dhigtay Abduwali annaga soo kacayna waa kan nin kasta oo muwaadinana waa la soo dhaweynay xajintu waxay ka kacday see musharaxiinta u soo dhaweyn kala annagu arday xiraysan oo dugsi dhigata ma nihiin dad waxaan nahay dastuurka waxa ku qoran hadaan ku xadgudubnay hada waa wax qoran hadaan ku xadgudbin sharcigana waa annagana la ku xadgudo odaygu lagu xadgudbina hada wixii wax danaynaya iyo bulshada iyo waxa qaanuunka sharciga yaqaan baan u bandhig waxaan isticmaalayaa mahmaah Abduwali maxaa calaakaas hadda ka hor ku mahmahay oo uu yiri habar dhalay weyda aleela ku waalad annagu federaal shughul kuma lihin lama hadlin nama adeegsan shughul kuma lihin isaga federaalka waxa ka dhaxeeya isaga yaalan wixii naga hadlaysiiyay oo hore aan uga hadalnayna waxay ahayd dagaalkii maxaakiimta lagaga safaynayo koonfurta Soomaaliya iyo gobolada dhexe intii ku baabaaday oo ciidan Soomaaliyeed ahay baanaga natanqay iyo dawladda shughul kuma lihin waxaan ka mid ahaa saraakiishii gobolada dhexe ka dagaal gashay oo hogaaminayay Abdullaahi Cali Mire General Harais iyo Siciid Gorayawl oo amaadulaha ay hogaaminayaan baan ka mid ahay oo xolalka xukumay wixii naga dhintay iyo dhibtaan ku marnay iyo maalkii ku baabaay baan xusuus gelisay taasaa kaliftay inaanu ka hadalno niraahno sidii lagu helay dawladda federaalka maanta jidda sidii lagu helay nimaan ogeyn baan baaraynaya taasaa naga keentay laakiin wax dawladda federaalka iyo cid kale oo siyaasadeed oo dibadda ka Puntland ma jirin